السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa inaan comment yar ka bixiyo 100 cisho kadib dagaalkii Falastiin ee Gaza. Maanta maalintiisii boqolaad galay maxaa Israa'iil u xaqiijismay bal aynu isla fiirino. 7 Oktoobar waxaynu ogeyn in lasoo qabtay Israa'iiliyiin maxaabiis ah. Israa'iilna wixii intaa ka dambeeyay ay propaganda inta ay sameeyeen ay sheegteen in caruur laga qowracay in la gubay faamiliyo iyo waxyaabo badan ay sheegtay si ay u hesho taageero caalamka ah khaasatan xagga westernka iyo reer galbeedka inay dhalinyartoodii iyo mujtamaca halkaasi ay public support ay ka hesho taageero oo mujtamaca dhinacaasa inay ka hesho iyadoo ku raadinaysa ayaa ay buunbuunisay oo dowrkeedii victimka iyo badidhacaha inay tahay ay aad u ciyaartay iyada oo runtii control fiican u leh miidiyaha iyo iclaamka si guud. kadib wixii intaa ka dambeeyay dagaal bay qaaday rushayn iyo wax badan oo dhib ah ayay ka geysatay Gaza. dagaalkaasi ujeedooyinka ay noo sheegeen ee ay ku aadayeen ay doonayeen inay galaan waxay ahayd dhowr ujeedo soo socda. waxaa ka mid ah kow inay Gaza controlaan oo iyagu Gaza yeeshaan dib ay u galaan Gaza ayna sidaa maamulkeeda kula wareegaan iyaga oo sheegaya si ay iskaga ilaaliyaan in meeshaas ay cid kale maamusho oo iyaga wax yeeli karta ama gantaalo kusoo ridi karta ama hadeeta weerar dambe uu kaga iman karo. qodobka labaad ee meesha u galan waxay ahayd inay Xamaas ururka la yiraahdo ay meesha ka saaraan oo ay tirtiraan. qodobka saddexaad ee ay u galeen waxay ahayd in ay soo daystaan maxaabiistii laga haystay ay awood ku sii daystaan iyaga oon u maraynin wadooyin nabad ah iyo negotiation iyo maaragtay one ta kale waxay rabeen inay qabtaan ama ay dilaan hogaamiyaasha sare ee Xamaas ee ku nool Gaza. haddaba waxaynu isla eeganaa 100 cisho kadib objectiveskaasi nayloo sheegay maxaa uga suura galay maxaase weli aan u suura galin. wixii intaa ka dambeeyay 7 Oktoobar Israa'iil waxa ay heshay support xagga caalamka dawladaha ugu dhaqaalaha badan ee reer galbeedka. Germany ay kamid tahay European Unionka badankiisa marka Spain iyo in yar laga reebo laakiin badankiisa oo Germany ay hogaaminayso waxay noqdeen wadamo aad u taageera Israa'iil iyo dagaalkeeda ay ku qaadaysay Gaza. waana wadano aad dhaqaalahooda u fiican yahay marka la barbar dhigo adduunyada kale. waxay taageero ka heshay oo aan gabasho lahayn wadanada Carabta sida Urdun, Masar iyo Imaaraadka oo si cad oo aan gabad lahayn u garab taagan. kuwa kalena ay u garab taageyneen in macaawinadii iyo xuduudiina ay ka xidheen ay wax taageero aan u fidinaynin dadkii taageeri lahaayee dhulkooda joogayna ay xakameeyeen xanibeen. waxa kale oo ay heshay oo ugu muuqasho oo ugu taageero cad waa Mareykankii oo hub diyaarado iyo ciidanba ku garab taagan. Israa'iil waxa ku soo imiday jabhado meelo badan ka kala imiday calooshooda shaqaystayaala Italian ka imiday qaar ka imiday Talyaaniga dabcan Faransiiska oo ilaa 4 la sheego inay ka imaadeen oo ay Israa'iil aadeen. Yahuud badan oo Yurubtaas kala joogtay oo da'dii ciidan iyo military gaadhay oo iyaguna imiday baa jira. waxa kale oo jira in ciidankii Israa'iil oo 100,000 ah si guudna wadankaasi waxa weeyaan qofku systemkiisa iyo curriculumka waxbarasho oo kale ayaa ayay kamid tahay inuu wadankana 2 sano oo military ahaan uu qofku usoo qaato sidii dawladii kacaankeena jirtay. marka ciidan ahaan waad arkaysaa tiradii ku xallo wixii reserve-ka ahaa ama ciidankii xagga dambe ee kaydka ahaayoo dhan waa la wada dhaqaajiyay. waxaas oo ciidana oo tiro badan waxa la geeyay oo la rabay in ujeedooyinkan lagu fuliyo waxaas oo ciidana oo ku hubaysan hubkii ugu dambeeyay dhaqaale aan ka walwalaynin oo wadanadii ugu dhaqaalaha badnaa adduunku uu garab taagan yahay ayaa iyaguna tiro iyo cudud iyo ciidan iyo qalab iyo wax walba iyagu u dhameystiran yahay. waxa loogu talagalay in lagu fuliyo ujeedooyinkan idin sheegay soo socday. ujeedooyinkaasi haddaba waxaa la bilaabay in Gaza la galo. Gaza markii la bilaabay in la galo oo dhulkii sheekadu ciidankii cagta ee tirada intaa leeg ee taangiyadii wax kasta ku hubaysnaa la geliyay deegaankii Gaza waxa dhacday arrinta soo socota. dadka horta lala dagaalamaya waxaasoo ciidana hubkii ugu dambeeyay iyo ciidankaas cududda intaa leeg leh ee iskaga kala imiday adduunyada dhan oo gaaladii oo dhan ay isku hiirisay. dadka ay la dagaalamayaan
wadad sandalo ku dagaalamaya xataa diris male wadad surwaal gaagaaban ku dagaalamaya wadad aan kaare iyo waxba lahayn wadad aan jiib haysan wadad aan waxbaba haysan marka hub ahaan la eego maxay haystaan waxay haystaan aake iyo wax la yiraahdo yaasiin oo bazooka oo kala ah yani hubab yar yar oo jiib ah qaar badanna lagu dhex sameeyay iyaga meeshooda lagu sameeyay haystaan inta waxa u dheer hawada awood iyo saameyn kuma leh waxa kale Israa'iil oo diyaaradaheegii si kastaba ay u joogaan taangiyo iyo waxaas ma adeegsadaan oo hubkii ciidamada cagtay weynaana ma haystaan dhaqaale halka ciidanka Israa'iil ay dhaqaale ka walwaleyn tira ahaan waa laga tira badan yahay adduunyada oo dhan way go'doomisay meel kastana Israa'iil baa kaga harareysan iyo Israa'iil walaalaheed oo ay kamid yihiin Masar iyo Imaaraadka iyo Urdun iyo wadanadaas xukaamta Carabtu ay hogaamiyaan dadkaas baa la dagaalamaya cid aan Ilaahay hayn ma haystaan 100 sano ayuu marayaa 100 cisho ayuu dagaalkaasi marayaa lagula jiro dadka sidaas marka la eego itaal adduunyo dadka sidaa u itaal yar wax alla waxay haystaan aynay jirin iyo adduunyadaas oo dhan ee iskugu tagaysaba wax alla waxaas oo dhan ku hubaysan maalintii 100aad bay la galeen maalintii 100aad ujeedooyinka waxaas oo ciidana Israa'iil soo urursay u gashay maalintii 100aad bay maraysaa wax alla wixii ahdaaf la rabay in la xaqiijiyo maxaa ka suurtoobay waxba kama suurtoobin hal hadaf oo qura la xaqiijiyo halka hadafna waa maxay waxa la rabay in Yahya Sinwar oo kamid ah hoggaamada Hamas la dilo ama la soo qabto kabtiisi baa la helay يعني the only هدف meeshaasi guul ugu dhaweey gaadhay waa ninka inay kabtiisa hesho Israa'iil way maalintan saa u soo bandhigayeen meediyadooda waa kab markaa waa guusha ugu sareysay gaadhay laakiin waxyaabahan soo socda inay Gaza la control maalintii 100aad baa la isla marayaa waxay ka baxeen meelo badan oo waqooyiga ah ayay ka baxeen Beit Hanun ay kamid tahay Israa'iil way soo gashay way ku jabtay dib u gorasho way ka baxeen maalintii 100aad Hamas in la tirtiro halkay maraysan waa mid fashilantay bal Hamas bay si kordhinaysaa tiradooda waxay ku sii kordhinaysaa ninka maanta hooyadii iyo ubadkiisa wixii laga dilay bari wuxuu galayaa ciidankaasi hubaysan ee Yahuudda la dagaalamaya isaguna si uu u argoosto marka tiradoodii bay sii xoojisay madfac kasta iyo gantaal kasta oo ridaan tiradoodii sii xoojisay in la soo daayo hostageski la haystay way dhici weyday dhowr jeer baa la isku dayay in qasab lagu soo furto iyagana way dhinteen kuwii doonayay inay soo furtaan way dhamaadeen in hogaamiyaasha Hamas la soo qabto kabtoodii baa mid kamid ah la helay waxa laga soo qabtay Gaza oo hogaamiye Hamas ma jirto waxa weeyaan Israa'iil waxa kale damacsaneyd inay hesho popular support adduunyada ah waxba kuma aysan helin adduunyadii oo dhan iyo westernka ugu weynaado mudaharaado waaweyn baa kaga socda dadkii cadaankii reer galbeedkii way naceen inay dulmi iyo ay tahay xasuuq waxa ay wado ayaa ay isku raaceen yani way weyday popular supportigi caalamiga rabtay inta waxa u dheer khasaare dhaqaale oo soo gaaray waxa intaas u dheer in kumanaan ciidankeeda kamid ah ay yihiin sida ay joornaaladeedu faafinayaan kuwa hadeeto aan tarmi karin kuwa infertile dabar go'ay oo yani aan tarmiba karinba oo dhaawacyo iyo dib ka soo gaaray awgeed kumanaan kamid ah inay yihiin kuwa cripple ilaa 4000 ayaa ay TRT sheegtay yani oo ama lugla ama gacanla yani disabled noqday PTSD waa epidemic yani post traumatic stress disorder inay sas iyo dib ay ka qaadaan dagaalkii waa wax xadbeel noqotay way inta waxa dheer iyagii markay imaadeen iyagii baaba waxay sameynayaan iyagoo naxsan oo sas iyo wax badan uu ku jiro ay Israa'iil ku soo noqdeen mid kamid ah ogeedina Al Jazeera weegii dhaweed ay soo daysay oo intuu jiifsaday qorigii oo ag hurda intuu soo kacay isagoo hurda qorigiisa uu la soo toosay kuwii ag hurday oo dhan uu ku wada rusheeyo rasaasay yani waxa soo dhib ah ayaa soo gaadhay Yahuud badanna waa ay ka qaxeen waxayna u qaxeen Yurubiyoodii iyo meelihii kale ay ka haysteen nationality marka 100 sano kadib 100 cisho kadib waxaynu haynaa guul xagga Ilaahay uun ka timiday dadkaasi cid kale ma haystaan cid la dagaalamaysan waa ciidankii ugu xoog weynaa adduunka ciidankii ugu xoog weynaa markaan leeyahay waxaan ka hadlayaa maadiyan waa ciidanku wuxuu ka walwalaya ma jirto xoog dhaqaale hadii uu leeyahay xoog hubeed oo casri iyo wax kasta dadka adduunkii oo dhan isugu tagay waa iyaga maanta laakiin Ilaahay bay haystaan maadaama Ilaahay haystaan waxa weeye waa kuwaas guul ku taagan maanta
السلام عليكم.